الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد درس كان نوضا بأي رمضان تن وحين كهذا إن شاء الله زكاة الله يقان زكاة الفطر وزكاة البدن أو زكاة الرؤوس أو زكاة الرقاب أفرت مقعبة ولا هذا زكاة رمضان ورك لقى أفر لا بحيه أما شركة لقى بحيه أما مدح أما قارت تطبيق طبعا قضب بين كوسا ورورين دونا إن شاء الله أحكام تيده أما السؤال أينو كدقنا زكاة فدري محل لوجت تيده والصدقة الله بحيه مركز رمضان لقى أفره قدر كذا أينو شاقي دونا إن شاء الله مدة لو واجبية والسنة دي لبعض waxa la isweydiin karaa xukunkeeda ma sunna mise waa faral ma waa faral sakada xoolo faral ay u tahay ayay iyaduna faral u tahay xadiidka saxiixa ibn umar uu warinayo ayaa daliil u ah farada rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitr min ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin ala kulli 'abdin ala kulli hurrin aw 'abdin dhakarin aw untha min al-muslimin nabigu wuxuu waajib ka dhigay sakada ramadaan marka laga afuro loo yaqaan zakat fidriga waana saacana waynu sheegi doonaa qadarka uu yahay waa timirtii iyo heeda bahasha la yiraahdo dadka laga bixinayaana waa qofkii xorta ahaa adoonkii labkii dhadigii muslimiinta oo dhan su'aasha kale waxa weeye saddexaad maxaa ku jira ama siraha ku jira in la qaado sakadan laba faa'iido ku jira midna mujtamaca ay u soo noqonaysa faa'iido midna qofka nabigu wuxuu waajibiyay sakadan wa farada rasuulullaahi zakat al-fitr dhuhratan lis-saa'im min al-lagwi wa rafath wa du'matan lil-masaakin masaakinta gurmad bay u tahay oo maalmaha xoolo badan bay helayaan siiba maalinta ciida sadaqadii marka loo soo ururiyo qofkii soomanaana ilaahay uu ku nadiifinayaa marka kii bixiye kii la siiyay labaduba way ka faa'iideen sakadan yaa laga bixinaya waxa laga bixinaya qof kasta oo muslima waayo ala kulli muslim buu nabigu mid al-muslimiina marka qofka bixinayana waa inuu helayo qofkan kalena waa inuu muslim yahay ama qaangaar ha ahaado ama ha yaraado ama ha weynaado agoon ha ahaado ha waalaado qof walba waa laga bixin waxa culimada qaarkood ay isweydiiyaan qof ilmaha yara urjiifka caloosha ku jira laakiin daliil ma laha kaasi qowlka raajixa waxa weeyaan waxba laga bixinayn inkastoo Usmaan ibn Affan iyo Ahmed ibn Hanbal iyo qoliya caynkaasi ay yiraahdeen waa laga bixinay haddana qowlka raajixa waxa weeyaan ibn Mundirna ijmaacba uu ku sheegay inaanay ilmaha caloosha ku jira ku waajibayn ifkaba musaabixin sakadan iyada ما الله شرط يا سيدي حوله النساء إن مثلا قفك النساء وحسك قالها يست وحب الله بشر ديه لأنه قال صلى الله عليه وسلم على المسلمين تولن بعامي على مرك قفك إنه حول سكح حوله وكبحيها يست وحب شرط ما يسقون بالله شرط هذين كاي مالين تا وحبعنا يا وحك الصهرة إنه هايسته دين هدي قفك اللي يقول له يسكذا بيهر شوك سنة يسا ما الدين المؤجل لا يمنع وجوب زكاة الفطر زكاة الفطر يجي مهر شوك سنة يسا هدي دين توقت الله هذا وأنا مكلجوها يسنين هدول لجوها يستا لكن ده واتسكبحين قدر كواجبه يا وانت ساعة بقى قصو كان حديث كرسولك صلى الله عليه وسلم ساعة وحوها وحسيدا ديل كوكلا ولا قوم يسنشري بريقا هور الراشنك لكن مركي لقياسي قدر كيس waxa lagu tilmaamay inuu yahay 2167 gram inagu laba galaan iyo bar baynu bixinaa ama 2 kiilo bar wayba ka badantay ma laga badin karaa mise waa in lagu xadidaa un saaci uu ka kordhin karaa qof ilaahay baa wuxuu faman tadawwa khayran fa huwa khayrun lahu rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri ninkii sakada bixinayay ee bixiyo wixii lagu lahaa wax ka weyn ama ka shilis wixii aanu kugu lahayn noocaas oo aha kana uu ka weyn yahay laakiin waa ka aqbalayna ilaahayna uu ka ajir siinaya
sakadan iyada noocyada laga bixinayaa waa noocee raashinka waxa laga bixinayaa ilaa 7 nooc oo waqtiga laga bixin jiray iyo wixii la mid ah hadda timirta heeda sabiibka caana booraha baasha la yiraahdo qamadida sareenka garawga ama masagada intaas laga bixin jiray bariga hore imikana de bariiskii iyo baastadii iyo daqiiqdii iyo timirtii iyo waa laga wada bixin karaa wixii aan ahayn saliida iyo sokorta qodobka 11aad qiimaha ma la bixin karaa maya lacagnimo laguma bixin karo waa raashinuun nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku bixiyay raashin dadkana fara inay ku bixiyaan xigmadda wallahu a'lam miskiinka jecel waligiiba ha jeclaado wuxuu nabigu jeclaadun baynu jecelahay markay laba arrimood taagan tahay adiga dantaada iyo danta miskiinka diin ahaantaada horeynaysa faralku siduu sax ku yahay un baad ku fulinaysa nasiib wanaag inagana de masaakiintu maba diidaan imika raashino baahi baa jirta baahidiiba aad u badan ba goorma ayay sakadani waajibaysa muslimiintu waxay isla waafaqsan habeenka ciida mar hadii la afuray ila min al-fidr bu nabi marka laga afuray min fidr ramadaan faladii ramadaan laga afuray iyo faradaba isku xidhan uu waajibiyay waqtiga laga afuro ramadaan marka kol hadii habeenka ciida la gaaro waa waajib sakada iyada sakaat fidriga waqtigaas ay waajibaysa waqtiga ay waajibka taybara fiican in la bixiyo يوم العيد أي أصحاب تلمارين تعيده أي ماذا شافعية ذو حيليهن مالين تعيده كل دي لا يريد الصبح أنكم أجا إلى مالين كوردن ولا بحين كرا وحتى أنت لتكذا كدب ولا بحين كرا على العموم سيدا فضل قبضني وحوي وقت ونبي بحين شراء أنت نعيد اللي ودريرين سكذا يدا ما لقيتي هو الرئيسين كرا وقتك هو تسيدا أفضل كاوين صوت المعنى لكن علماء ذين بدنا كم دي وحيليهن كل هذي سكتها هاي سكتنا الله بس سبب إلهي سبب كهر رمضان بوها سبب الله بعدنا عيد وها مركز رمضان يسوق شو أما رمضان دحريده ولا بحين كرا قيب كذا وحي قيب كم ذي وحي سوق هذانا ينصرفون الصالح أصحاب تقار كذا بحين شري سكدن الله بس تحد عشة مركز عيد كارد الله بس تحش هذا وحي وبدأ هنا لا سيد قديمي كربش دحريده أفضل كون كده دال وأصبح عيد sakadan iyada ayaa la siinayaa waxa la siinayaa fuqarada iyo masaakiinta labada qolaa waqtigii nabiga la siin jiray kuwaasana loola gurmanaya sidaasaanay muslimiintu isku waafaqsan ee waxba la raadsan maayo 8 qolo ee aayadu ay sheegtay kuwii daymoobay iyo kuwii islaamka lagu soo dhaweynayay waxa wax badan ka gaari meysee labadan qole aad u xayraan in hortaaga fuqarada iyo masaakiinta واسا لغو امسينيا لغو خارجينيا سكدن يان لا سينينين hadaynu aragna cidi la siinayo 5 qolo adigu markaad bixinayso 5 qolo siin mays 5 qolo ma siinays ama aynu nidaahnaba 6 qolo qof horta waxaysto oo de isagu iska ladan lama siinayo arintaas waa yara qalado inaga qof iskaba ladan baa la siiya markaas isna iskaga bixiya oo mid kale oo iska ladan siiya marka waa la isku wareejiyaa sax ma aha taas qofku kala hadii uu iska fiican yahay waxaysto masaariiftiisa haysta lama siinayo gaalkiina lama siinayo waalidkaaga ma siinaysid aabbo iyo awow hooyo ayeeyo dadka waalidiinta ku ah caruurtaadana ma siinaysid caruurtaadu hadii ay wax la yihiin sidaada kale wax u sii sadaqadii sunnaha ahayd caruurtaadii dadkay si dhaleen oo dham waa ku caruurun waxaan la siinaynin oo kala xaaskaaguna masaariif bay kugu leedahay taasay ku kaaftoomaysaa laakiin sakaat fidriga ma siinaysid gabadhu ma siin kartaa ninkeeda hadduu baahan iyada haabaa la leeyahay leannahu kuma waajib kuma aha masaariifta ninkeedu waajib kuma aha waa 5 qolo meelaha taqriiban marka la isku soo celiyo sakada yaan la siinaynin halkaasaynu kaga baxnay markaynu nidhi gaalkii waxaa ka mid a murtadkii hadduu midkani diinta caaya kan ardaaga kula jooga istaqaanaa diintu buu caaya ilaahay buu caaya waaba reerkiina waa in adeerkaaba lama siinayo
meel kale ma la geyn karaa miyiga iyo magaalooyinkaa kale baahan iyo waxaa la isku waafaqsan yahay haddii halkan sakaat fidriga lagu bixinayo baahidu ku yartay oo dadku iska ladan yihiin waa la qaadi karaa sida dadka dabadaha jooga oo kale dadkeena dabadaha jooga waa laga yaabaa qofka hadduu yidhaa intan raashino qaado inuu idhaahdo raashin uma baahniye meelaha gee oo dadku ay iska wada haystaan bariiska ayaa waxaa la yara cuncunaya taa waa la isku waafaqsan yahay saa daraaddeed dadka dabadda jooga oo kale halkan ay usoo dirayaan lacagta raashin baa lagu iibinayaa fuqarada iyo masaakiinta la siinaya laakiin dad baahani kol hadday kula joogaan sida fiicani waxa weeye inaad halkan ku bixiso aada joogto dadka laga bixinaya halkay joogaan waa in lagu bixiyaa kol hadday fuqarada iyo masaakiintu halkaa joogaan laakiin waxaa culimada qaarkood sheegayaan haddii dad qaraabo ah oo aada usii baahani meel kaa durugsan ay joogaan waa loo diri karaa sekadani haddii ay ku dhaafto ma lasoo qalaynaya mise saasay ku dhaaftay maya waa waajib maalintii ciidda haddaanad bixinin oo ay ku dhaaftay waktigaasi fursaddaasi ku dhaaftay faral lagugu leeyahay wey waa sidii sekada xoolaha oo kale dayntu ma duugowdo nebiguna wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam fa dayn ullahi axaqu an yuqdaa daynta ilaahay baa ku habboon in la bixiyo markaa qofkiyuu u qaadanin hadduu maalintii ciidda iyo rabadaan iyo sakaatu fidrigii seegay in la iska daynayo waa inuu qofku markuu xusuusto bixiyaa dadkana sidaa loo sheegaa oo qofku uu ka gaadhsiiyaa xataa hadduu subaxii ciidda ilaaway maalinka ciidda waa inuu ka gaadhsiiyo faralkuna in loo dhaqsadaa buu mudan yahay oo la ilaaliyo markaa 17 qodob ama 18 ayaynu ku soo ururinaynaa wixii su'aala ka iman lahaa sakaat fidriga وهذا ما أقوله وأستغفر الله تنبينا الله ضعف كي واردنا الله ضعف خاتمنا الله إنه هجاتي عسي شرفنا الله ينسيه عبادة الله ينجا أقبله ضدك بكنا الله عافية مراد كأنه خير لنا الله ينسيه الذي يدويه وحينه هيننا الله ينور بركيه هينه هجاتي صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك